Booliska gobolka Sanaag ee PUNTLAND oo fahfaahiyay xubno ka tirsan Al-shabab usocday buuraha galgala. Ciidamada ammaanka gobolka Sanaag ayaa sida la sheegay qabtay gaari ay la socdeen 4 ruux oo lagu sheegay inay ka tirsan yihiin Al-shabab iyo dareewalkoodii. Waxaa ka warbixiyay taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag ee PUNTLAND Cabdi Faarax Dheere oo la hadlay idaacadaha maxalliga ah ee ka howlgala PUNTLAND. Waxaana la sheegay inay ka yimaadeen raggan ka tirsan Al-shabab koonfurta Soomaaliya una soo gudbeen degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag. Waxaana sidoo kale ay soo mareen sida ay boolisku sheegeen degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Raggan ayuu taliyuhu sheegay in la toogtay mid ka mid ah oo dagaalamay. Waxaana sidoo kale ka mid ah ragga la soo qabtay dareewalkii gaariga ay ka soo raaceen magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. hawshaad ciidanka waa galka sameeyay marka alay abaara sagaalkii iyo barkii baa galkaasi dhacay. ciidankaas la gudbinayo 5 nin iyo gaari iyo adigoo agab ciidan oo saaran ayaa lagu soo qabtay raacinta dibulka iyadoo sii koraya. Mar la weydiiyay sida ay u ogaadeen raggan inay ka tirsan yihiin Al-shabab una socdaan buuraha galgala ayaa waxa uu ku jawaabay waa la dareensanaa adigoo sirdoonka waa la hayay in Ceerigaabo shalay ka soo ambabaxeen xalay habeenimana ay ka baxeen badan waa la hayay marka waana la dareensanaa maxalliga aan bay noqotay in la qabto marka wixii isku dayay oo dagaalamayna waa dhintay oo ninkaasaa dhintay. 4 kalena waa la qabtay xagga markay beledweyne laga soo qaado say iyagu noo sheegeen ama waraysiga aan ku helay marka ma qarsan waxa ay yihiin. Burca yimaadeen burca markay ka yimaadeenna waxay yimaadeen Ceerigaabana meel walba qofka laga ballaminayay jooga oo su'aan bixinayay oo hawshooda iyo qarashkooda qaabilsanaa. sidoo kale waxaa la weydiiyay in Somaliland ay xuduudeedu aad u adag tahay oo aan si fudud looga soo gudbi karin sida ay ku dhacday inay soo dhex maraan. Wuxuuna ku jawaabay taliyuhu sida tan laakiin waxaa ila tahay kolley oo qaar ahaanteedu nawtaa ay tahay waa saaxiibo. Somaliland ayaa arrintan weli ka hadlin oo aan wax faahfaahin ka soo saarin dhankeeda. Cabdilaahi Yusuf Abdullaahi Bakayle wararka telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Garowe.